بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن داوديال kusoo dhawaada barnaamijkaygii falaqaynta wararka ee caalamka iyo waliba arrimaha Soomaaliya qodobada aan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona doorashadii Soomaaliya oo maraysa meel xasaasi ah xildhibaanada golaha aqalka sare iyo aqalka hoose oo la sheegay qaarka ugu badan inaysan soo laaban doonin yaa tareenka ka dhici doona qodobada kale ee aan idiin hayana waxaa ka mid noqon doona maamulkii ahlu sunna wal jamaaca ee markaa rabin jiray gobolada dhexe dadku ma u darsadeen mise way ka darsadeen nabad ma ka jirtaa hadda meelihii ay ka rabin jireen maxaase isbedel oo ku yimi maamulkii ahlu sunna wal jamaaca intii maamulka galmudug uu ka farmurujiyay gobolada dhexe ee Soomaaliya qodobada kale ee aan idiin hayana waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo la sheegayo oo ku baaqay in uu maamulka Tigraygu inay ogolaadaan xabajoojinta isagoo beesha caalamka ka codsay in ay xabajoojin ku qasbaan maamulka gobolkaasi Tigrayga ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed miyaa laga adkaaday iyo waliba maamulka Tigrayga oo dagaal culus kula jira maamulka Amxaarada dagaal 3 maalmood halkaas ka soconaya waxuu u dhaxaysa Tigrayga iyo Amxaarada barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada arrimaha bulshada ee maanta aan idin hayana waxaa ka mid noqon doona fankii Soomaaliya oo aad moodo inuu ka sii dhacay haadaan dadka fanaaniinta ee Soomaaliya oo hadda la sheegayo inay iska soo badanayaan oo mikrofoonka iska qabsanayaan dadka xeeladayaasha ayaa waxay sheegayaan in mikrofoonku qabsoon ay tahay oo iska hees amkiin ogow inaan ahay boqorkii TikTok maahan hip hop maqaayadaadan ka dhex qadayna marka hore waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto haddii aadan horey noo joogtayna waad ku mahadsantahay channelkaaga YouTube-ka Abshir Joker waxaan ka codsanayaa inaad subscribe dhahdo mahadsanid doorashadii Soomaaliya ayaa hadda waxaa la filayaa aqalka hoose iyo aqalka sare in la guda galo oo si toos ah loo guda galo waxaa la sheegayaa xildhibaano badan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waqtigooda dhamaaday oo hadda la sheegaya in ay tareenka si toos ah uga dhici doonaan xildhibaanada halkaas sawirradooda kaga muuqdaan oo list dheer aan kasoo diyaariyay oo hadda ay soo koobi doonaan ayaa la sheegaya in hadda ay tareenka ka dhici doonaan xildhibaano badan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo rabay in ay 2 sano dowladda federaalka Soomaaliya ay rabto inay ku sidarsato xildhibaanada tareenka ka dhici doona waxaa ka mid ah Balawilay Daahir Amiin Jeesto oo la sheegay inuu tareenka si toos ah uga dhici doono iyadoo isagoo hadda dowladda federaalka Soomaaliya ee xukuumadda ku noqday mucaarad markii hore la jiray xildhibaanada kale ee aan idiin hayay la sheegay inay tareen ka dhici doonaan waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdixakiin oo la sheegay inuu tareenka isagoo si toos ah uga sii dhici doono xildhibaanada kale ee aan idiin hayay ee tareenka ka sii dhici doona waxaa ka mid ah Balawilay xildhibaan Ubax Taliil oo iyana la sheegay in ay tareenka si toos ah uga sii dhici doonto xildhibaanada kale ee hadda qiilqiilka ku jira ee la sheegay in iyaguna hadda ay tareenkaasi ka sii dhici rabaan waxaa ka mid ah ama ay isku fiicnaan maamulka Puntland Jamaal Maxamed Xasan oo laga soo doorto Puntland xildhibaanada kale ee aan idiin hayo waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo hadda la sheegay in muddo 20 sano ka badan kursigaas uu ku fadhiyay oo hadda la sheegay in kursigiisii qof kale loo diyaarinayo ama xukuumaddu ay rabto in qof kale u diyaariso xildhibaanada ayaa la sheegay in buuq badan oo hareyn doono aqalka sare haddii aynu eegno xildhibaanada la sheegay tareenka inay ka dhici doonaan waxaa ka mid ah leeyahay xildhibaan Dhagay iyo waliba Dhagdheer oo la sheegay inaysan ku soo laaban doonin aqalka sare xildhibaanada kale ee la sheegay hadda inaysan soo laaban doonin waxaa ka mid ah leeyahay xildhibaano laga soo doorto Somaliland oo aqalka sare kuwaas la sheegay hadda dowladda federaalka Soomaaliya inay wado qodobo rabto inaysan ku soo laaban doorashadii Soomaaliya ayaa hadda waxaa la sheegayaa in ay toos loo gudagalayo iyadoo oo la sheegaya in hadda ay doorashada Soomaaliya yeeladooda maalmaha soo socda xasaasi waxaa magaalada Muqdisho ku soo qulqulaya qurbo joog iyo waliba dad badan oo lacag badan haysta iyagoo oo la sheegaya inay si toos lacagaha u bixinayaan ergadii ayaa la xarinayaa bishan iyadoo oo la sheegaya in siyaasiyiin badan ay maamul goboleedyada tagi doonaan magaalooyinka xasaasiga ee doorashadu ay ka dhici doonto waxaa ka mid ah leeyahay Galmudug halkaas magaalada Dhuusamareeb iyo magaalada Gaalkacyo ay kuraas badan ku hardami doonaan magaalada Gaalkacyo waxaa isku arki doona leeyahay xildhibaano badan oo magaalada Gaalkacyo ku sugan oo sheegaya in ay hardam badan ka dhici doonto barnaamij weyn ayaan ka sameyn doonaa oo maalmaha soo socda aan ka hadli doonaa xildhibaanada ayaa mudan inuu soo laabto ra'iisul Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu ka fogaado inuu doonayo in laga fogaado wax khilaaf oo ama rabshada oo ka dhaca maamul goboleedyada
waxaa la sheegayaa in maalmahan soo socda si toos ah loo gudagali doono iyada oo senatarada aqalka sare ee gobolada waqooyi kasoo jeedaan lagu dooran doono magaalada Muqdisho. Maamulka uu hogaamiye Cabdi Xaashi iyo waliba maamulka iyo kuwa garabka uu hogaamiye Mahdi Guuleed ayaa iyaga la soo sheegaya in ay damacsan 6 u kala jabaan iyada oo maamulka Cabdi Xaashi ay doorteen gudoomiye shalay. waxaa la sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu haddii ay saxalin waayaan waqooyigu in ay 5 u kala qaadi doonaan 2 iyo 2 oo uu soo magacaabi doono gudoomiye ku xigan waa sida ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hore uu ballan qaaday. maamulkii ka arrimin jiray gobolada dhexe ee Soomaaliya oo hogaamin jiray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo waliba Macalin Maxamuud ayaa la sheegayaa in dadka qaar ay u darsadeen. waxaa la sheegayaa in magaalooyinka Dhuusmareeb iyo Guriceel oo ay ka arrimin jireen maamulka Ahlusunna wal Jamiica oo dadku si ammaan ah ay ku mari jireen hadda habeenada qaarkood cabsi lagu maro. waxaa la sheegayaa in maamulka Ahlusunna wal Jamiica ay halkaasi nabad ka dhigi jireen iyaga oo la sheegayo in dad badan ay u darsadeen hadda. wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamo badan oo hadda ku sugan Galmudug ay ka ammaan badan tahay markii hore. haddana la sheegayo in dadku ay marmar cabsi dareemaan. magaalada Dhuusmareeb ayaa agagaarkeeda waxaa la soo sheegayaa marmar in amni xumo ay ka jirto. xilliyada habeenkii ayaa waxaa la sheegayaa in magaalada Dhuusmareeb ay ku soo badanayaan la leeyahay burcad dhacda dadka mobilada ka dhacda iyadoo xilliga Ahlusunna wal Jamiica ay ka talinaysay baa leeyahay in ay ammaan ahayd magaalada iyo waliba agagaarkeeda. maamulkii Ahlusunna wal Jamiica ayaa dadka qaar ka dhalila waxay ku sheegeen inay diideen dadka deegaanka u dhashay inay fuliyaan mashaariic oo qurba joogta iyo waliba maxadiyo iskuul inay ka furaan iyaga oo sheegay inay dana kala ka wataan. Ahlusunna wal Jamiica ayaa laga farmaroojiyay magaaladaasi kadib markii dagaal culus ay la gashay dowladda federaalka Soomaaliya ee gaar ahaan xukuumaddii Xasan Cali Khayre oo la sheegayo inay khiyaamo u dhigtay baa la sheegay markii dambana ay qaab military ay ku diday. Ahlusunna wal Jamiica ayaa la sheegayaa in dadka deegaanku ay aad u jeclaayeen xilligii dhanka ammaanka marka loo firiyo iyaga oo magaalooyinkaasi ka dhigay nabad sida dadku ay sheegayaan. qodobada kalena waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa beesha caalamka ka codsay in maamulka Tigreega ay ogolaadaan in xabad joojin. ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa la sheegayaa hadda dagaalkaasi in uu ku fashilmay sida ay sheegayaan xeeladayaashu. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa warqad u qoray golaha ammaanka qaramada midoobay iyo midowga Afrika isagoo sheegay inay ku qasbaan maamulka Tigreega in sidii mashaariic loo gaarsiin lahaa oo ay kamid yihiin bangiyadii, diyaaradihii iyo waliba korontadii in la gaarsiiyo gobolkaasi Tigreega. maamulka Tigreega ayaa waxa ay sheegeen in Abiy Ahmed ay ka adkaadeen iyaga oo sheegay in dhammaan ay qabsadeen maamulka gobolada Tigreega. dagaal culus ayaa wuxuu ka soconayay maalmihii la soo dhaafay xadka u dhexeeya Amxaarada iyo Tigreega iyadoo maamulka Tigreega uu weerar ku qaaday magaalooyin ay horey uga qabsadeen maamulka Amxaarada. maamulka Amxaarada ayaa la sheegay inay sheegeen inay iska difaacayaan iyaga oo sheegay in maamulka Tigreega ay haystaan hadaba leeyahay hub aad u tiro badan oo la sheegay in dawlado kale ay siiyeen. maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa dagaalo xoog leh ka soconaya xadka Eritrea iyo waliba maamulka Amxaarada iyagoo maamulka Amxaarada hadaba ay ku dhawaaqeen inay si toos uga arrimiyaan maamulkoodii oo dhammaan deegaamadooda ay qabsadeen. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo isbuucii la soo dhaafay ama shalay ku guuleystay doorashadii la sheegayo ayaa waxaa isagana dowladaha beesha caalamku aysan ka hadlin doorashadiisa iyada oo madaxweynaha federaalka Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hambalyo u diray oo sheegayo inuu u hambalyanayo iyadoo dowladihii caalamku wali aysan ka hadlin doorashadaasi. dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa horey ugu baaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu qabto doorasho loo dhan yahay. waxaa la sheegayaa in maalmo hore ay soo saareen warmartiyada ay ku sheegeen in doorashadaas ay tahay mid dhinac ka raran oo uu iscalama saaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. inta aan ka bixin arrimaha bulshada waxaa ka mid ah fankii Soomaaliya oo aad moodo hadda inuu ka sii dhacayo haadaan. dadka xeelerayaasha ayaa waxay leeyihiin in aad heesto ama fanaan noqoto kuma xidhna wax weyn waa mikrofoon qaado oo iska hees. baan daawano fanaaniinta qaar ee hadda fanka ku cusub oo sheegay fanka inay badbaadin doonaan. ogow inaan ahay boqorkii tiktok maahan hip hop maqaayadaadan ka dhex qaday. markii aad tahay baa leeyahay nin Soomaaliya ama gabar Soomaaliya kuma xidhna inaad fanaan noqoto ama inaad noqoto ama qarash badan iska liso. waa mikrofoonkaaga qaado oo ay mikrofoonka iska qabso erayana isku soo aadiso aan wax micna sameyn bay leeyihiin. waxaa la sheegayaa fankii Soomaaliya hadda inuu ka sii dhacay baa leeyahay haadaan ama meel dheer
taas oo la sheegaya in banka Soomaaliya haddaba uu u muuqdo mid gabi dheer ka sii dhacaya ayaa hadda la sheegaya inay ku soo badanayso Soomaaliya iyadoo oo qofka uu qaadanayo microphone ama uu telefoonkiisa iskaga dubayo iyadoo uu ku dhawaaqayo inuu yahay fanaanba uu doonayo fanka inuu badbaadiyo laakiin xeelalayaasha ayaa waxay ku micnayeen taasuba inayba tahay erayo iska hadala oo wax weyn aan sameynayno guud ahaan barnaamijkeeni falaqaynta wararka inta ayaan ku soo gabagabeynayna nabadgelyo